waddankan cunista ukunta waxay ahayd arrin si adag loo mamnuucay. Qofkii lagu qabto isagoo cunaya xukunkiisu wuxuu ahaa dil, laakiin dadka qaar ayaa si qarsoodi ah u cuni jiray. Haweeney hotel yar lahayd ayaa si degdeg ah ukun u karinaysay oo dadka si aamusan u quudinaysay. Dhibaatadu waxay ahayd in macaamiishu ay aad u buuqayeen. Waxay si cabsi leh ugu faqday, aamusa, haddii kale boqorka diiqa ayaa iman doona. Qof kasta meeshiisii ayuu ku qalalay, laakiin gabadhii ayaa argagaxday kadib markii si lama filaan ah loo garaacay gambaleelka albaabka. Waxaana soo galay diiq weyn oo cidiyo af badan leh. Wuxuu miiska ku arkay qolof ukun ah oo jajaban. Qof kasta si degdeg ah ayuu afkiisa u masaxay, waxaana ay iska dhigeen dad aan waxba ogeyn. Diiqii indhihiisu xanaaq ayay la gubanayeen. Waddankan diiqda ayaa wax walba xukumi jirtay. Wadooyinka ayay roonda ku mari jireen si ay u hubiyaan inaan cidina ku dhicin inay ukun cunto. Haweeneydii hoteelka lahayd ayaa bilowday inay gariirto. Diiqii ayaa ku qayliyey, dhammaantiin sharciga waad jebiseen. Waxaa laydinku ciqaabi doonaa dil. Odayda ah ayaa u adkaysan waayey. Aad buu u gaajaysnaa. Wuxuu qabsaday ukuntiisii nushiilnayd, wuxuuna ku cunay isla diiqii hortiisa. Markii ay arkeen isaga, dadkii kale oo dhan ayaa argagaxay oo iyaguna bilaabay inay cunaan. Qaarkood xitaa cabsi darteed waxay liqeen ukun ceyriin ah. Diiqdii ayaa xanaaq la waashay. Waxay arkeen daraasiin ukun ah oo dabka saaran oo la karinayo. Gabadhii ayaa cabsi darteed dib u guratay, dabadeedna indhaha ayay kala qaaday. Waxaas oo dhan waxay ahaayeen riyo.